wiilkan jimco kasta waxa uu booqan jiray qabriga xaaskiisa oo geeriyootay balse hadda waa uu iska dhaafay oo gebi ahaanba faraha ayuu ka qaaday waxa uuna iska ilaaway xaaskiisii dunida uu ugu jeclay intii ay nooleed balse markii ay dhimatay waxa uu yiri halkaaga ku jir anigu teemkooma haya aan kugu soo booqdee balse ogow markii aad dunida ku nooshahay dad badan ayaa ku dhihi doona waan ku jecelnahay qabrigaaga haddii aad dhimato oo aad inaga hormarto qabrigaaga waa aan booqan doonaa adduun iyo aakhiraba waan ku jeclaan doonaa dad badan ayaa dunida kugu dhihi doona balse markii aad geeriyooto gebi ahaanba qabrigaaga qof soo booqda ma arki doontid waxa laga yaabaa 5 maalmood ee ugu horeysa in dadku ay ku qiiroodaan Japan maalmo kadib dadku waa ay ku ilaawi doonaan ninkani sida halkan idinkaga muuqata wiilkan fanaanka waxa uu dib ugu laabtay aroosyadiisii baashaalkiisii balse gebi ahaanba waxa uu goobta ka saaray gabadhii dunida markii ay la joogtay asaga qof ka dhigtay sidoo kalena uu heeso horay ugu soo qaaday uu yiri hala'aanta qof maan ahayn horta nolol maan lahayn anigu waxaan ahay eber balse adiga ayaa qof iga dhigay ayuu dhihi jiray markii ay dunida joogtay balse markii ay dhimatay waa uu isaga aamusay qabrigeedii uu biyo ku shubi jiray uu ahay mid mar walba jimco kasta kormeera waa uu iska dhaafay oo gebi ahaanba waa uu ka baaqsaday aroosyadiisii ayuu sii wataa adduunkiisii ayuu ku raaxaysanayaa xaaskiisii hantidii ay uga tagtay ayuu magacyo badan u kala samaystay moorla hebel moorla kafeey moorla timajare iyo sidoo kale moorla massage balse gebi ahaanba gabadhii u furtay ganacsigaasi ee la jecleed inuu horumar gaaro qabrigeedii waa uu booqa waayay waxa uuna ku jiraa adduun kale oo gebi ahaanba iyadoo waa uu iska ilaaway waxa uu ahay fanaan da'yar gacan qabasho u baahan qof dhiirigeliyo u baahan intaasi oo dhan waa ay u samaysay waxa ina u muujiday garab istaag ilaa heer markii dambe ay soo gaarsiiday inay dadka dhamo ka wada masayraan isla markaana jacaylka ay labadoodu isku qabaan muhibbada ay isku muujinayaan in dadka dhano ay yiraahdaan war kuwani Soomaali ma ahan ee faracoodu muxuu yahay ugu dambeyn waxa goobta ka baxay xaaskiisii waxaana dunida ku haray asaga oo kaliya iyo sidoo kale gabar ay uga tagtay gurigi lagu noolaay ayaan ka hadlayaa gabadhii markii ay ka dhimatay xaaskiisa ahayd waa uu soo dhaqaaqay waxa uuna u daarneed maalintaasi murugo iyo sidoo kale qarracan aad u fara badan maalmo kadib qabrigeeda waxa uu tagayay jimco kasta waxa uuna booqanayay markasta oo jimco waaya la yiraahdo asagoo oo gaarigiisa qaata tagana goobtaasi isla markaana u duceeyay xaaskiisa oo biyo ku soo shushuba qabrigeeda jimco kasta waqtigii ayuu tagayay waxa uuna ahay waqtiga uu jimco kasta tagayay hal bil oo kaliya waqtigii intaasi ka dambeeyay fankii ayuu dib ugu laabtay waxa uuna iska garaacday muusigiisii gabdhihiisii ayuu laabta iska galiyay waxa uuna iska ilaaway xaaskiisii dunida ugu jecleyd ee ilaa yaraantiisii la soo hana qaaday ee qof fanaan ee la garanayo ee waxa weeye xubin iska soo saaray ka dhigtay ayuu gebi ahaanba iska ilaaway waxa uuna ku laabtay adduunkiisii haddaba haddii intaan aad nala soo gaartay oo aad aaminsan tahay inaad dhima doonto maalin ciidana aad ka hoos mari doonto qaybta commentiga waxaan kaaga codsanayaa inaad u duceydo gabadhan lagu magacaabo Farxiyo oo dunida faarujiday 2 sano ka hor isla markaana mucjisooyin kala dunida ku reebtay mucjisada gabadhan waxa kamid jimco markii la yiraahdo hamiinkii la yiraahdo waa jimcoy waa ay ka soo horbaxay qaybta TikTok mana taqaanid sababta ay kaaga soo horbaxday adigu oo hal mar u duceeyay ayadna is arkaysaa haddaba haddii adigu aad jeceshahay intaadana rabbisaas kaaga dhigo oo maalinta aad dhimato dadku ku xasuustaan isla markaana lagu duceeyo fadlan muuqaalkan ha dhaafin ee u duceey Allah u naxariistay Farxiyo Diboos Lady waxa ay ahayd gabar wanaagsan gabar akhlaaq badan adduunka laga jecel yahay ganacsiyo badan leh dumarka soo dhaweeyda isla markaana ninkeeda ka dambeeyda oo aad u ixtiraam badan balse waa ay geeriyootay oo dunida ayay faarujiday ninkii dhihi jiray adduunka ayaan u jeclaanana gabi ahaanba waa uu iska ilaaway oo waxa uu yiri meeshaada ku jir teemkooma hayo
adduunkayga ayaan eryanayaa taasina waa caado dadka oo dhani ay wada leeyihiin balse markaad dhanka kale ka fiirido wiilkan magaciisa barta TikTok oo ku soo galo waxa ugu qoran shaygii Shamso waxa uu joogaa 90 daqiiqo mar walba adduunka oo dhan waxa uu ku qaadanayaa halkan aad u jeedaan oo ah qabuuraha ay ku duugan tahay xaaskiisii oo lagu magacaabo Shamso waa ay ka geeriyootay waxa uu soo qaataa sijaayad waxa uu na yimaadaa goobtan waxa uu ugu duceeyaa aad maalin walbana waxa uu tagaa halkan live TikTok ayuu ka soo galaa asagoo xaaskiisa u baryaaya in Allah subhanahu wa ta'ala uu naxariisto haddaba raggu ma wada amaal dhacaan qaarkood ayaan amaalka garanaynin wiilkan yarka ee dhalinyarada ah xaaskiisa aad ayuu u jeclaay waxa uu go'aan ku gaaray in mar walba uu garabkeeda noqdo xitaa meydka markii la aaso ee qabriga laga kala dareerayo meydku waa udan ayaa lagu leeyahay qofka ugu dambeeya ee la jooga ee isla markaasi u duceynaya waxa uuna ka hor istaagayaa ama uu uga duceynayaa ka hor istaagi kara balse waxa uu uga duceynayaa argagaxa iyo sidoo kale malaa'igta wareyso doonta markuu goobtan galo muuqaalkanagu waxa uu ahay ama uu cabirayay markii aad dhimato sida lagaaga danaysan doono waxaana qaybtan labaad ku soo qaadan doonaa dadku markii ay geeriyoodaan ama adigan idaawanaya ee bartayda YouTube-ka ku xiran markii aad geeriyooto sida dadka dhan ay ku ilaawi doonaan iyo kaliya qofka ku soo xasuusan doona fadlan subscribe sar channelkan Xodale Media kuna xirnaaw oo like garay si aad mar walba ula socoto qisooyinka iyo sidoo kale barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino mahadsanid ما قف غالي وهذا هيستا قف غالي مرة ويا وش رمانسا شنا فردوسا ومعنا إن شاء الله هاوشة رمانسا مرة وقف إن شاء الله قف غالي هو هيستا مرة وهو شو رمانسا وشو دولا كذا فصل وام جي فوسط الريحة وقفنا يضيع معني هذه الله وحنا وحبان وقفنا يدعي بينها بين هذا كم دينا ساسو كلا حمر وبصدقوا إن شاء الله حاولت تقدرها ولقى ما أعرف محمد بدنا بدعني غير مو يعني ما حاولت تقدر هاي غلطي يا سيد الله يقول تشجعنا مكان برتاي دم تاي برتاي والله بلا ولا ماشي قران بايال الله ينور ربي انت عيال كيجي لكل انا عيال حمرك ادوك ugu jeclay dul Soomaali digto Soomaali waa iyaga iga kasbaday sida ay ixtiraamaan gobonimada nasabka dadka subaxda qof dadku ma Soomaali baa tahay anu dadku wallahi marka qadiyadayda halka la dhigo iska tiish maamul Soomaaliyeed waa qalan qarab ha wallahi والله دارنا دي الله 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 دي فايف عروق شنو أفرت الكمريين دارنا ميا كفت مع بعض